dhagihii alla dartii ii dhegaysan jirayow maantana waxaan wadaa mar kale wanaagii aan ka soo guray beerihii wanaagsanaa ee ku yaalay buuraha wanaagsan biyo aan ka soo daray badihii wanaagga badnaana sidoo kale waan idin wadaa walaalahayow ii wanaajiya maqalka intaan idin wado warkan wanaagga badan kuwani waa xigmado ku saabsan akhlaaqda teeda wanaagsan ee ka bogasho habboon allah wuxuu ka yeelay akhlaaqda mideeda karaamaysan iyo mideeda wanaagsanba midna xiriirisa annaga iyo allah akhlaaqdu waa mid u soo baxda sidii dhirta oo kale haddii aad ku waraabiso biyo wanaagsan haddaba sideebaad ugu malaynaysaa carruurtaada khayr haddii aad ku barbaariso akhlaaq aan wanaagsanayn qofka akhlaaqdiisa ay dadku hadalhaynayaan magaciisana uu sare ugu qaadmayaa goortii uu maqan yahayna iyada ayuu ku karaamaysmayaa oo ku badbaadaa akhlaaqdu waa afar dhowrsanaanta hagaajinta nafta xifdinta walaalaha iyo caawinta deriska akhlaaqdu kaliya ma ahan inaad wanaagsanaato balse waa inaad wax ku wanaagsanaataa ballaarnimada akhlaaqduna waa biladaha arsaaqda akhlaaqdu waxay caddaataa ama ay si fiican u soo muuqataa xilliyada dhibaatada qofka akhlaaqda leh waa kan markii aad ku ammaanta akhlaaqdiisa xishoodo markii aad canaanataana aamuso ma jiro qof akhlaaq leh oo haddana u saaxiib ah been xalaal miirashana ma lahan qof akhlaaq xun akhlaaqda wanaagsan waa gaadiid ka mid ah gaadiidka lagu badbaado akhlaaqdu waa dhir xididadeeduna waxay ku talaalan yihiin samada ubaxyadeeda iyo dhirteedana ay carfiyaan arlada aas-aasku wuu fasaadaa goortii ay qaacidadiisu ahayn akhlaaq ka bilaaba wax walba hagaajinta akhlaaqda maxaa yeelay iyadu waa waddada koowaad qofkii xumeeyaana akhlaaqdiisa wuxuu cadaabay nafsadiisa ha quusanina yacnii ha rajo dhigina waayo quusashadu kama mid ahna akhlaaqda muslimiinta akhlaaqda karaamaysanin waa carabkoo laga run sheego daacadnimadoo laga run sheego qofka wax ku weyddiisaa oo la siiyo iyo qaraabadoo la xidhiiriyo annagu ma nihin kuwo u baahan cilmi badan balse waxaynu nahay kuwo u baahan akhlaaq badan oo wanaagsan ma jirto ummad aan lahayn akhlaaq mana jirta akhlaaq aan lahayn caqiido mana jirta caqiide aan lahayn faham kudayashada wanaagsan ayaa ka khayr badan talada haddii aadan xishoonaynin samay wixii aad doonto dadka waxaa ugu akhlaaq wanaagsan kuwa dadka khayrka uga farxiya ula dhaqan dadka sidaad jeceshahay adiga in lagula dhaqmo oo kale taasi raaligelin ma ahan ee waa akhlaaqdaada ma suurtogelaysa insaanku inuu noqdo caalim ilaa inuu noqdo insaan akhlaaq leh mooye